bilaal radiyallahu anhu bilaal alxabashi radiyallahu anhu maalintuu dhimanayay ee sankaraadku qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tidhi waa xasrataah waa xasanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul ballanbalino ha igu dul qayline waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tidhi maxaan ku farxaa sawdiga iga dhimanaya maaha wuxuu idhi hadan nalqa alaxibbah muxammadan wa saxbah anu beritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkii baan ku jiray jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay limaada lianna bilaal radia allahu canhu mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam micraashka markuu soo noqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal innii samictu dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigu waxaan laazimaa tahaaradda ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waan ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaa buu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya alatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyseqabka aad laasimtay iyo markaad weyse qaadataan labada ragcadood ee tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taa buu rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini'aadanka waxa darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maaddada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini'aadanka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica wuxuu siiyey uu sii kaa yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahuw aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahuw waxaad aniga igu kaalmaysaa daacaddaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maadda nebigu ma siinayo ninka uu jecel yahay adduunye ma siinayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nebi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayuu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa mucaad binu jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu wasammaanii buu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay baa kule ubay bnu kacab waa niga ugu akhrista fiicna qur'aanka ilaahay ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay bna kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suuratu lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu yidhi wasammaanii ma rabbigay baa anigay magacaabay markaasuu yidhi haa subxaana allah farxadduu ku seexda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warrama tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubay bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i magacaabay fabakaa ubay farxad buu la ooyey farxad yabkuun min shiddati alfarax maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaaday hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwaddooda may raacin shariicadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada innaku maanta aan haysanno een innakuna maanta aan ku abtirsanayno unbay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaaddu waa salaaddii qur-aanku waa qur-aankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajiddu waa masaajiddii xaggee u jeesanaya baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinayay baan akhriyaynaa laakiin qulubtaas beddesha maanta maxaa isbeddelay
قلوبته اسمد الشيء. هذا أبي بن كعب، وهذا معاذ بن جبل، وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. جبريل عليه السلام أيا سمدا كسو دادقيا مكو إمنيا وحكى له مسعدو وحكى له مسدو صلاني بشارو سدا أيو أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين. يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعدو الشكتا الله السلام كان سلام قسدا وعنا الله بشاري وبشاري قصر جنة كويا اللي قلي دونتا قصر ومركي قشنا وحصة وحنا إيا اللغوية يقيلوها بيراتي أيسان مغلي دونين بالو بشاري وبشاري بوكيري. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلهي نقو قيمين ما يقبيل، إلهي نقو قيمين ما يلعق، إلهي مادة نقو قيمين ما يو، إلهي وحاو نقو قيمين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.